Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Huawei waa shirkad caalami ah, waxay adduunka kaga jirtaa kaalinta koowaad soo saarista qalabka isgaadhsiinta. Sidoo kale waxay kaalinta labaad kaga jirtaa soo saarista moobilada gacanta ee loo yaqaan smartphone. Waxa keliya ee kaalinta koowaad kaga horeeya waa shirkadda Samsung. Asalka Huawei waa shirkad Shiinees ah oo soo saarta qalabka isgaadhsiinta. Shirkaddan isgaadhsiineed ee dalka Shiinaha ayaa isha lagu hayaa daafaha adduunka, iyadoo laga walaacsan yahay xidhiidhka dhow ee ay la leedahay dowladda Shiinaha oo u muuqata inay tahay dowlad awood badan leh oo adduunka kusii faafaysa. Dowladaha Maraykanka, reer Yurub iyo waddamada xulafada la ah waxay cabsi weyn ka qabaan khataraha amni ee ay yeelan karto shirkaddani, maadaama ay xidhiidh dhow la leedahay dowladda Shiinaha. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu soo saaray amarro ah inaan la isticmaali karin qalabka ay soo saarto shirkaddani waa Huawei dalka Maraykanka gudihiisa. Sidoo kale waxaa lagu amray in aanay isticmaalin qalabka shirkaddan gudaha dalka Maraykanka shirkadaha Maraykanka ahi. Meng Zhou, oo ah sarkaalka madaxa dhaqaalaha ee Huawei, ayaa bishii Diseembar lagu qabtay dalka Canada, waxaana lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay cunaqabataynta ganacsiga ee saaran dalka Iiraan. Waxay ku jirtaa xabsi guri Canada iyadoo sugaysa inay ogaato bal inaan loo gudbin doono dalka Maraykanka. Waxay sidoo kale tahay gabadha uu dhalay ninka mas-uulka ka ah ama aasaasaha shirkadda Huawei ee Ren Zhengfu. Bishii koowaad sanadkii 2019, waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka waxay ku eedeysay shirkadda Huawei madaxa maaliyadda Meng Zhengfu musuqmaasuq ka dhan ah. Bishii labaad sanadka 2020, madaxa suuqgeynta iyo xalinta iibka ayaa soo bandhigay shabakadda 5G oo ah internet xawaarihiisu aad u sarreeyo, waxaana lagu soo bandhigay dalka Ingiriiska magaalo madaxdiisa London. Shirkaddani waxay kaga horumartay shirkadaha kale ee Maraykanka iyo reer Yurub soo saarka nidaamka casriga ah ee loo yaqaan 5G. Qalabka ay soo saarto Huawei waxaa ka mid ah smartphoneska, moobilada gacmaha lagu qaato, laptops-yada, iyo network devices. Tallaabadani waxay sidoo kale u muuqataa inay qayb ka tahay dagaalka ganacsi ee socda ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Haddaba, waa kuma aasaasaha Huawei? Mr. Ren Zhengfu wuxuu ku dhashay Oktoobar 25, sanadkii 1944 magaalo ka baxsan dalka gudaha ama caasimadda dalka Shiinaha. Waxa uu soo noqday macallin iskuul. Mr. Ren wuxuu ku qaatay sanadkiisii dugsiga hoose iyo kan sare magaalada Guangzhou. Sanadkii 1963 wuxuu ku bartay maxadka Chongqing Institute of Engineering and Architecture. Markii uu ka qalin jebiyey, wuxuu ka shaqaynayay warshadda injineerada madaniga ah ilaa 1974, markii uu ku soo biiray ciidanka injineerinka ee militariga, askar ahaana loo xil saaray in uu dhiso warshadda kiimikada ee Liaoyang. Intaa kadib, Mr. Ren wuxuu jagooyin ka qaatay farsamayaqaano, injineer, waxaana markii u dambeysay loo dallacsiiyey ku-xigeenka agaasime ku-xigeen, kaasoo ahaa kaalin xirfadeed oo u dhiganta ku-xigeenka madaxa diiwaangelinta, laakiin aan lahayn darajo militari. Mr. Ren waxaa lagu casuumay inuu ka qayb galo shirka sayniska qaranka
1978 iyo shirweynihii 12aad ee golaha shuuciga ee Shiinaha 1982. Ciidanka kadib wuxuu ka shaqeeyay saldhigga adeegga saadka ee shirkadda Shenzhen South Sea Corporation. Maadaama uusan ku qanacsanayn shaqadiisa, wuxuu go'aansaday inuu aasaaso Huawei oo magaalo madax u ah. Wuxuu noqday madaxa shirkadda Huawei 1988 ama 1988, wuxuuna jagadan ku fadhiyaa tan iyo markaas.